wasiirka ayaa sheegay in heshiiskan uu la ogaa madaxweyne Farmaajo saxiixa heshiiskan ay Soomaaliya ku helayso 7 milyan oo dollar. faylkan waxaa si khaas ah u hayay aniga iyo madaxweynaha aad isaga warqabnay muddo dheer ka wada shaqeynay. Alaykum saaxiibayaal duur wanaagsan idilkiiba warka ugu weyn ee baraha bulshada gilgilay saakay ayaa ku aadan qoraal bogga filla Soomaaliya la soo dhigay xalay oo sheegaya in dawladda Soomaaliya ay heshiis buuxda qalinka ku duugtay kaasoo ku aadan shidaal baaris ay la gashay shirkadda Coastline Exploration in shidaal laga baari karo badda iyo bariga Soomaaliya. dadka heshiiskan naqdinaya durba waxay leeyihiin madaxweyne Xasan Sheekh Soomaaliya ninkii heshiiskii Farmaajo isla shirkaddan Coastline uu la galay ku tilmaama baadil hadda maxaa xalaaleeyay. doodaas ayaynu ku qaadaa dhigaynaa qodobka koowaad ee barnaamijka iyo xogaha aan ka helno. qodobka labaadna sidaad la socotaan waxaa jiray in Mareykanku cunaqabateen uu saaray 7 xubnood oo shabaab ah kuwaasoo kooxda ka taageeri jiray hubka iyo maaliyadda intaba. magacyada 7daas xubnood iyo jufooyinka ay ka yihiin beelaha ama reeraha Soomaaliyeed ayaynu qodobka labaad ee barnaamijka ku qaadaa dhigaynaa. waayahay aan u soo laabto qodobka koowaad baraha bulshada waxaa haysta qoraal filla Soomaaliya xalay boggeeda lagu daabacay oo ay ku sheegeen dawladda federaalka Soomaaliya in heshiis ay la gashay shirkadda Coastline loona ogolaaday in Soomaaliya wixii ka dambeeya haddan aan kula hadlayo in shidaal laga baari karo meeshii laga helan laga qodi karo. durbadood weyn ayaa ka dhex abuurantay siyaasiyiinta Soomaalida oo ku kala aragti duwan heshiiskii xalay. qaar waxay leeyihiin madaxweyne Xasan Sheekh muxuu heshiiskii Farmaajo uu galay hore baadil ugu tilmaamay oo kan haddana isagoo 6 bilood uu joogin hore uu qalinka uga duugay. horta dad badan mooga heshiiskan waxaa soo saxiixay dawladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ila dhageyso wasiirkii markaasi batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed. wasiirka ayaa sheegay in heshiiskan uu la ogaa madaxweyne Farmaajo saxiixa heshiiskan ay Soomaaliya ku helayso 7 milyan oo dollar. faylkan waxaa si khaas ah u hayay aniga iyo madaxweynaha aad isaga warqabnay muddo dheer ka wada shaqeynay. haday noqoto sharcigii batroolka, haday noqoto shirkadahan inay xamar yimaadaan, haday noqoto in heshiiskan la galo intaba si khaas ah madaxweynaha hawshan ila waday. waayahay waa wasiirkii batroolka ee xukuumadda mataqaan dawladdii Farmaajo oo dhahaya madaxweynaha heshiiskan ila ogaa madaxweynaha ii dirsaday. وانا صح وزير ما صحيح كره وحنا مدحوين اوجين عقليا حتى هدانا عقليا لو قردرونين واسك عد هاي لكن مدحوين فرماجو او شعبك قلوبتooda la ciyaara lana jaan qaada ayaa markii ay ka war heleen sida wasiirku uu sheegay in shacabkii ay ogaadeen heshiiska durba gaashanku u daruuray waa ka soo horjeesay isagoo shacabka markaa iska sii jeedinaya sida wasiirka uu sheegay shacabkii markuu arka waaye 7 xirmood ay saxiixeen 7 milyan oo dollar ayaa halkii xirmo lagu qaataa. sign bonus la dhahaa halkii xirmo waa 1 milyan oo dollar 7 milyan ee markaa Farmaajo iyo wasiirkiisa saas ku laqeen horta. heshiiska marka madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiinta ugu muga weyneed ee ka hor imaaday. yaan heshiis loo la gelin yaan shidaal Soomaaliya loo qodin yaan waxba laga faa'iidin Xasan Sheekh iyo mas'uuliyiintii markaas ma taqaanaa ka soo horjeesta macnaheedu diidmada saas ma ahayn. waxay ahayd in qodobada markaas ku jira heshiiska wax badan laga bedelo oo aan Soomaaliya u cuntami karin. qoraalkii xalay ka soo baxay filla Soomaaliya waxa lagu sheegay isla taas aniga aan qaboon dareemayaba in 5 qodob oo kamid ah markaa dawladdii Farmaajo ma taqaana ay la dhaxsaneen siyaasiyiinta qaar. laakiin xalay bogga waxa lagu shaaciyay dawladda federaalka in 5taas qodob wax weyn laga bedelay. in garyaqaan guud ee Soomaaliyeed iyo khubaro kale oo ma taqaana caalamkaba ay dawladda Soomaaliya ee iskaashi kala sameysay sidii dib loogu saxi lahaa. waa laga saxay heshiiska Soomaaliya iyo shirkadda Coastline waa dhaqan galaya oo waaba la saxiixay waa lagu kala baxay sida wasiirka batroolka Cabdirashiid uu shaaciyay. waayahay dadka qaar marka waxay leeyihiin sharcigii ma taqaana shidaalka wali baarlamaanku ma ansixin oo waa qabyo dastuurkana kuma jiro baarlamaanku ma ansixin. saami qaybsiga lama yaqaan qaabka hadda wax loo qaybsanayo haddii example Puntland laga helo shidaal koonfur galbeed maxay ku leedahay Jubbaland maxay ku leedahay gobolka Banaadir muxuu ku leeyahay Shabeellaha Dhexe maxay ma taqaan Hiiraan State maxay ku leedahay Galmudug maxay ku leedahay ama haddii Galmudug laga helo inta kale maxay ku leeyihiin saami qaybsigaas sida cadaaladda maxaa lagu sameyn karaa
soomaaliya waxaa horey u jira inay heshiisyo badan la galeen shirkado shisheeye waxaa jira in maamul goboleed iska heshiis shidaal soo galay mataqaana waxaa jira in gudoomiye degmo uu soo saxiixay gudoomiye gobol heshiis uu iskala galay shirkado shisheeye iyagoo lacagahaas xirmooyinka mataqaana ama heshiiska saxiixa kaliya lacagahaas la qaadanayo dadkana ee siyaasiyiinta ku leeyihiin heshiis shidaal baa la baarayaa sidan baa la yeelayaa laakiin waxaad moodaa dowladda federaalka dowladda dhexe hadda inay u istaagtay in heshiisyadii horena mataqaanaa ay kansaleen heshiiska hadda dowlad dhexe oo xoogan oo federaal ah oo madaxweyne xasan sheekh oo legitimacy cusub haysta inuu heshiiskaas saxiixa dadka heshiiskii hore dhaliilana waxay leeyihiin dowladda farmaajo xilliga heshiiskaasi ay galaysay lacagahana ay qaadanaysaba markaa wax sharciyado legitimacy maba haysanba masiiri go-aamo masiiriyana maba gaari karinba heshiiskan hadda waxaad moodaa soomaaliya iyo gobolkaba inay ku baraarugeen in waktiga shidaalka laga guurayo hadda oo 2030 dunidu ay u guureyso electricity baabuurta iyo adduunka dhan koronto ku soo caraba wax shidaal u baahan adduunka malaha marka ummad Soomaaliyeed oo baahan oo dhiban oo dhaqaale dari tabar dari wax walbo caafimaad dari dhan kasta laga haysto shaqo la'aan jirto hadiiba 7 sano hartay looga faa'iideynayo shidaalkooda iyagu ay ilaahay mataqaana ugu deeqay ay ka baahan yihiin 7 sano hartay shidaal la isticmaalay hadii Soomaalida looga faa'iideynayo waa wax dawladda Soomaaliya aan ku bogaadinayno kuna taageerayno kuna garab istaagsanna dadka heshiiska naqdinayana kaliya iyagoo wax mucaaradsan buu shida mataqaana 2030 la gaaraya shidaalna in la isticmaalo xataa laga yaabo xataa hadda baarista Costran ay sameynayso maahan ceelal la qodayo waa baaris in shidaal la helaa xataa qasab ma ah sidaad u aragtid qodobka heshiiskaas ay dawladda Soomaaliya la gashayna hoos inoogu reeb mahadsanid qodobka labaadna raggii Mareykanku uu madaxa ka taabtay ee 7 ahaa ee la leeyahay hubka Yemen bay ka keeni jireen maaliyadana waxay ku taageeri jireen qoladaas qawaariista ah oo nisa ay gudbisay ama Mareykanka sirdoonka Soomaaliya sirdoonka Mareykanka ay iska kaashadeen aynu soo helnay qabiiladooda iyo jufooyinka ay u kala dhasheen balse aad laga yaabay in aan wax uga taqaanid waxa ugu horeeya Maxamed Mire waa nin daarood ah oo harti ah oo majeerteen ah raggaas uu ku jiray oo hubka soo dusiya maaliyadana ku taageera Yaasir Jiis waa nin cayr ah oo ayaan la cadda ah weheliye dheere weeye isaguna Yusuf oo ku jira dabcan Yusuf Ahmed Xaaji Nuurow waa raxan weyn amniyaadka ayuu haystaa amniyaadka Mustafa Aato waa nin xawaadla ah Maxamed Cabdi Aadan ku xigeenka amiirka waa nin gaal jecel ah Khaliif Cadale NGO ayuu lacagta ka ururiyaa waana ceyr iyo oo ah cabsiye Xasan Afgooye galadi reer Afgooye waaye dhaqaalaha ayuuna haysan jiray laakiin hadda ma haysto Xasan Afgooye lahaa galadi waaye Cabdikariin Xuseen Gaagaale horseed baa magaciisa lagu soo koobay naanistiisa waa murusade ayaan samee waana ninka dhaqaalaha hadda haysta Cabdisamed baan ugu dambeeya waa nin tunni ah 7daas nin ayaa lagu soo eedeeyay shabaabku ay dhaqaalo iyo hub iyo intaba iyagoo shaati caadi iska gashan magaalada iska wareegay iska baashaalay intaba ay u ahaayeen rag garab weyn ku siiya baabi'inta iyo ciribtirka ummadda Soomaaliyeed intaas ayayna barnaamijkeena duhurnimo ku soo gabagabeynaya inta barnaamij noocan oo kulmi doono waa saaxiibkiin booska odile sida iyo nabadgelyo bye bye